Soomaaliya sanadii la soo dhaafaysan hore uu sheegay dawladnimadeedu waxay ku dhisantay qori isu dhiib iyo wax la yiraahdo kugu san adiga kugu fiicanta marka doorashada ay socoto dadku waa wada waa la dagaalamaya waxba la isku hayaa laakiin marka arrintu dhamaato qof waliba waxa weeye sharciga bisaduhu markay wax isku haystaan aad bay u qayliyaan way jiitamaan laakiin markay mid wixii qaadato mid wax ka daba hadlaya mujmeel hore saashaas fariisanaysa doorashadu waa noocaas waxa maanta ay dowladnimada Soomaaliya ee maanta aan aduurayna ay ku socotaa waa doorashada iyo xilliga kala guurka marba inay doorashadu sideeda ku dhaco waxaana si darra doorashadii February 2017 inaan maanta marayno dhowr iyo 20 September 2021 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhadhow waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto ama wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantay fara yar oo miskiin khatar kasta ayay galaysaa caqabad kasta ayaa ku imanaysa waxaan rabaa inaan caddayno mowqifka Jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go'aamadii hore loo gaaray 27 May October 2022 August iyo shirarkii kalaba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka madaxdooda ra'iisul wasaaruhu hogaaminaya golahaasi uu ku matalaya hagitaanka siyaasadda dalka maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha xilgaarsiinta ee waqtigiisu hadda dhamaaday maxamed abdullaahi farmaajo uu wareejiyey barnaamijkaasi sharciyadaydii halkaasi ku waxaysantahay waxaan ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn ee wadatashiga qaranku go'aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada Soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeriye aan gacanta lagu qabanayn ra'iisul wasaaruhuna shaqo dhinac la haysto dabada la haysto ma qaban karo haddii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyey badbaado qaran iyo ciidankii gadoobay maalinta dambe ay dhacday cidina ma xakamayn doonto bal gacanta ka bixi doonto laakiin waxaa nasiib darraa qofka isagoo meel u carra aan haysanin ee isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanaya ma labaynayo heshiisyadii aanu gaadhnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka orqiyay iyo kulligood markii la isku daro shaqada maanta dalka ka socota waxaa iskale golaha fulinta ee xilgaarsiinta ee uu hogaaminaya ra'iisul wasaaruhu isagaa waddanka mas-uulka ah ra'iisul wasaaruhu mindi daabkeeda la haysto waxba kama qaban karo meelna ma gaarsiin karay annagu golaha aanu ka tirsanayn madaxda dowlad goboleedyada dowladaha xubnaha dowladda federaalka waxaanu ra'iisul wasaaraha kula shaqaynaynay inuu hirgeliyo heshiisyada aan gaadhnay oo aan samayno doorasho sida ku dhiceen qaabkeeda loo qabto ma doorashuu samayn karaa haddii gabadh la dulmiyey oo sarkaaladahayd oo ciidanka nabadsugiidda ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhi reer qolaha shabaab baa dilay oo dhahay war ma anaan dilin dhaqanka dhaw sida ma ahayn annagu haddaan dila maalintii baan sheegan lahay ra'iisul wasaaruhu uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hala yaro dabada laga haysto ma waxaad u malaynaysaa doorashadu qaban karay ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraamna waxay nasli u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ee sabab u tahay inay kashifanto oo bannaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra'iisul wasaaraha tijaaba u tahay isaga daftarkiisa waxaan odhanayaa ra'iisul wasaaruhu si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kuugu dhiibtay oo lagugu ogyahay oo kugula shaqaynaynaaye shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kugu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi
gabadha dhibana kiiskeeda maxkamadii lahayd ee ciidanku ha qaado doorashaduna ha noqoto mid xalaal ah oo aad qabato oo siday tahay loo qabto oo aanay noqonin doorasho mindi daabkeeda la haysto oo la isla haysto ee waxay la tahay inaad go-aan adeeg intaad qaadato shaqada aan leenahay sideeda aad fuliso golaha isugu yeed wixii caqabada kugu timaado aan ka wada tashano wixii aadna amartay in la fuliyo heshiisku gaadhana ha la fuliyo midaasaan oranay muhiimadda ay leedahayna waxay tahay oo aan mid iyo laba iyo saddex toban ahayn oo aan ku celinaya oo ka digaya madaxweynaha federaalka waxaan leeyahay kiiska gabadhaas yuuna sababsanin mustaqbal xumo iyo madow siyaasadeed oo dad badan oo maanta siyaasadda ku jira saameyn ku yeelata arrinta doorashooyinku yayna ku dhammaanin si aada xun ha noqoto qorisijid intaad joogi karto waa joogtay nasiibkaaga qaado ka wareeg caqabadda aad maalinba ku samaynayso ra-iisul wasaaraha loo baneeyo shaqadiisa inta ku dhex jirta ee xalka ka raadinaysa ee nabad iyo wawaanta ka raadinaysaa aad baad u mahadsantihiina laakiin yayna noqonin waxaad raadinaysaan wax darab leh oo dhibaato keena oo caqabad keena oo beri la iskaga hor yimaado oo mushkiladaasi ay noqoto mid dib inoogu soo noqoto waxaan aada ilaahay uga baryayaa inuuna dib loogu celo wixii aan shalay soo maray carqaladihii aan soo maray caqabadihii aan soo maray wixii la soo qabsaday qofka waddanka gudihiisa joogaya maanta wuxuu garanayaa shalay meeshaynu ka mid iyo maanta meesha aan joogno laakiin qof dibadda ka yimid oo guri ku jira oo moodaya sidan inay dowladnimadu tahay oo sidan loogu soo gaaray way ku adagtay waxaan inagu qabsan weynana maanta cid loo qabanaysaa ma jirto saaxiibaday madaxda dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka waxaan leeyahay arrinta doorashooyinka aynu galno oo iyadu badbaadaha noqoto oo aan dedejina doorashooyinka oo waxyaalaha ku xeeran ee caqabadaha ee culaysyada ah intaan isu nimaadno ama aan khadka wada galla aynu go-aan ka gaadhno si doorasho waddanku ugu galo taasaan ka shaqaynaynaa iyadaan soo dhaweynaynaa reer jubbalandna waxaan hadalkayga ku soo koobaya warmidnimadeenna aan ilaalino oo doorashada aynu aadnu ah laga shaqeeyo oo doorashada cidda ka shaqaynaysa khusaysa aan u dayno oo kaambeynka faraha badan iyo waxa badan ee dhibkee buuqa ku jira dan badan oo kalaan leena aan ka shaqayno midnimadeenna aynu ilaalino isku duubnideena aynu ilaalino